madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug State mudane Caalin ayaa si diiran ay jaaliyada Galmudug State iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ugu soo dhaweeyeen madaarka Heathrow ee magaalada London. safarkan madaxweyne Caalin oo uu ku yimid magaalada London ayaa waxa uu noqonayaa kii labaad tan iyo markii la soo doortay xilka madaxtinimada ee maamul goboleedka Galmudug. haddana socdaalkan uu London ku yimid ayaa waxa uu kaga soo kicitamay dalka Denmark oo uu kaga qayb galay shirkii arrimaha Soomaaliya ee dhawaan halkaasi lagu soo gabagabeeyay. waxa aan weydiiyay socdaalkiisa London iyo shirka uu ka qayb galay ka Galmudug ahaan. runtii howlaan ka leeyahay jira halkan oo ku saabsan arrimo badan marka waan rajaynayaa insha Allah taala dawladdan halkan inaan iska aragno taasaana ugu muhiimsan waxa aan u imid iyo kormeer kale. runtii markaan ka hadlo doorka ugu fiican inaan ka qaadanaan u maleynayaa arrimaha Soomaaliya markii la yiraahdo waayo annagu xaqiiqada jirtana waa taabanay waa sheegnay dhibaatada jirtana waa ka hadalnay marka saan u aragno in Soomaaliya ay xal u tahay ayaan ka soo qaadnay taasna inta badan waa la qaatay arinteedii. madaxweynaha ayaa la sheegay inuu u socdo dalka Mareykanka oo si weyn ay jaaliyadu Galmudug halkaas ay rabaan inay ugu soo dhaweeyaan. inkastoo magaalada London ay ka mid tahay meelihii ugu ballaarnaa ee taageerada weyn oo ka helay maamulkan Galmudug iyadoo sanadkii la soo dhaafay boqolaal Soomaali ah ay u sameeyeen xaflad ballaaran oo soo dhaweena. waxaana iminka uu qorsheynayaa in sabtida soo socoto jaaliyada Galmudug uu kula kulmo magaalada London si uu ugu warbixiyo waxa uu qabsoomay maamul goboleedkan Galmudug maadaama la ogsoon yahay inuu ka mid noqday maamulada la aqoonsan yahay. madaxweynaha ayaa waxa loo galbiyay hotel aan sidaas ugu fogeyn gegida diyaaradaha Heathrow Airport halkaas uu ku nagaan doono maalmaha uu halkan joogo. anoo ku hadlaya magaca jaaliyada Galmudug magacaygu waa Maxamed Ciise waxaan ugu talagalnay soo dhaweyn ku saabsan sanad guurada Galmudug ee ka dhacaysa London UK. waxaa sharaf weyn noo ah in aan maanta soo dhaweyno madaxweynihii Galmudug Mr. Caalin ayaa sharaf weyn noo ah waxaan maartay ummadda Soomaaliyeed maanta meesha isugu timiday oo faraha weyn waxaan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan oo u soo dhaweeyeen madaxweynaha ayaan uga mahad celinayaa madaxweynahana waxaan leeyahay welcome ku soo dhawow magaalada London. maanta sidaad la wada socotaan ama aad ku arki doontaan idaacadaha waxaa soo degay madaxweyne Maxamed Axmed Caalin soo dhaweyntiisa runtii way ka duwaneed kuwii hore waxay ahayd soo dhaweyn aad u maartay dad aad u fara badan ay ka soo qayb galeen waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay dadweyne kala gedisan taasoo ay ugu wacan tahay in Galmudug ay ballaaratay xilligan oo aysan xilligii hore u yimid halkan madaxweynuhu ay ka gedisan tahay wasiirro ayaa la socday kuwa kalena waxay ku jireen kuwii soo dhaweynayay dabcan waxaan leenahay midda ku sii xigtaana waxay noqon doontaa midtaa ka sii ballaaran haddii lahayd. wallahi aad bay u fiicnay aad bayna mid aad u sarreysa ahayd Soomaali badan oo ka kooban jaaliyada iyo Soomaalida kale ayaa qayb ka qaatay soo dhaweynta madaxweynaha. wallahi waxaan u aragnaa si aad iyo aad shucuurteen u kacsan tahay si fiican oo soo dhaweynay waana ku faraxsanahay waxaan meesha isugu nimidna waxa madaxweynaha Galmudug inaan soo dhaweeyo. jaaliyada Galmudug State ayaa waxay isku diyaar gareynayaan inay madaxweyne Caalin ay u soo dhaweeyaan iyo kolkii hore madaxweyne Caalin ugu soo dhaweeyay magaalada London laakiin iminka waa ay ka duwan tahay waayo madaxweyne Caalin ayaa waxa uu ka mid noqday madaxda maamul goboleedyada sida rasmiga ay u aqoonsadeen United Nations. si kastaba ahaatee safarkiisan uu ku yimid magaalada London ayaa sidoo kale waxa uu ku sheegay inuu la kulmayo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Britain iyadoo horeyna uu qayb galay shirkii contact group ee ka dhacay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark. Brand Murphy wararka Universal London.